faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal gaar ah oo ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen duleedka degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, halkaas oo isbaaro ay u tahlay kooxda Al-Shabaab. war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ugu yaraan 10 xubnood oo Al-Shabaab ah oo isbaarada ku sugnaa, kuwaas oo go'doomin ku hayay gobolka Bay. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay xarun ay ku sugnaayeen khawaarijta oo ku taala deegaanka Ceel Bashiir oo ku yaala wadada xiriirisa deegaanka Jameeco iyo degmada Buur-Hakaba, ayaa lagu yiri qoraal ay baahisay warbaahinta dowladda. howlgalkaas ayaa dhacay salaadii maqrib ee xalay, waxaana lagu dilay 10 ka mid ah maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee goobtaasi lagu weeraray. goobta howlgalku ka dhacay waxay ahayd isbaaro ay khawaarijta ku qaadanaysay lacag baad ah, iyaga oo maalmihii u dambeeyay u isticmaalayay inay ku cunuqabateeyaan shacabka ku nool gobolka Bay, ayaa lagu yiri qoraalka dowladda ka soo baxay. ugu dambeyntii waxaa qoraalka lagu yiri howlgalku wuxuu ku soo dhamaaday sidii ay u qorsheeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. warkan ayaa imaanaya iyadoo shalay Al-Shabaab lagu laayay howlgal kale oo ka dhacay deegaanada Galibaax iyo Ceel Qurac oo dhaca xadka gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe, halkaas oo lagu dilay ku dhawaad 100 shabaab ah sida ay shaacisay dowladda Soomaaliya. sidoo kale howlgalka ka dhacay Buur-Hakaba wuxuu imaanayaa xilli cunuqabateen adag ay Al-Shabaab ku soo rogeen gobolka Bay, taas oo dhalisay qiladhaan iyo sicir barar ka taagan magaalooyin ay u horeyso Baydhabo. dowladda Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed ayaa loogu baaqay inay degdeg cunuqabateenta uga saaraan dadka reer Baydhabo, waxaana muuqata in maamulka Koonfur Galbeed uu bilaabay qorshe looga hortagayo cunuqabateenta kooxda. maalin ka hor kooxda Al-Shabaab ayaa gaari dameero raashin u waday magaalada Baydhabo oo gaariga ku dhawaad 10 gaari ku gubay deegaanka Daynuunay ee duleedka magaalada Baydhabo, waxaana deegaankaasi ku xiran gawaari badan oo Baydhabo iyo magaalo raashin uga keenay. Al-Shabaab ayaa ah mid ka mid ah kooxaha Islaamiyiinta ah ee ugu awoodda badan Afrika. Al-Shabaab ayaa xukun la mid ah Taliban ku fulisa malaayiin qof oo Soomaaliya jooga, waxayna khatar sii kordhaysa ku yihiin xasiloonida gobolka Geeska Afrika. isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhasus daweynta xanuunkaaga, waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle. badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital.